رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta jecelahay inaan dadka xasuusiyo hore waxa la inoo yiri ilowsho dhawaa maamulba wixii xasuuq ka dhacay dalkan raadkiisa qoyanaa ayaan iska ilownaa waa ogtiino maalin uu xal xusiyay Yurub ay xusisay France lagu xusiyay dadkii ka dhintay lagu xasuuqay dagaalkii koowaad ee adduunka maanta waxa weeye 27 July waa maalintii dadka gasiiro lagu xasuuqay ee Israa'iil inta guriga laga soo baxay reer ahaan loo dilay waa soddon guuradii weey waa jiraan xasuuq badan oo ka dhacay Hargeysa Ceergaaw meel kasta ka dhacay laakiin kan taariikhdiisa ayaa maalintan waxa ahayd 17 waxay ku soo beegantay soo maanta markabkii xoolaha ee ka baxay berbera oo ilaa hadda xadnimo yahay waxay isweydiin leeyahay iyo xasuuqa ka madaxaha yaa fuliyay waxa fuliyay Maxamed Saad Bare maanta xoolaha Soomaaliland hal xadnimo yaa yiri waxa weeye farmaajo waxa weeye history repeats itself waxa weeye adeerkii waa Maxamed Saad Bare سموك ما أنت حبدي نسوي نلاقي سوي قارو هاي معيشتي أيوه إنك لا تقالمية وهذا شرط تيجي لها ممكن مدحوني سودقي وردتك كلا صار وحليه دون صوماليه كلا صار حسن الشيخ باها مدحويني شيخ حسن باها شيخ شريف باها وليجيني يا الهين معيشة سومال لهن لقى ما تقالمية ما عنده حوي وحتى سنة توسسها إن سيجارة وفرماشيو كوريدا وماشي كو هايستا إن الله دعالم يعني وحلا يابلا لكن نك وزير كأله يروح الدنيا إنه نافق حوالها بقى وبقول أو كقاطه $1 وهذا صدق مليون حوالها حبان صدق $1 مليون بصحة رئيسانية طبعا كنت جروب كماشة فديا inay yihiin dad xaalufinaya oo doonaya ummadda lacagteeda ursadaan badii bay iibiyeen oo ogtihiin Norwegian iyo laga iibiyay shisheeye waa ogtihiin ciidamo shisheeye keeneen marka waxa weeye group u soo talagalay inay Soomaaliya hadana dagaal sokeeye galiyaan iyo isla aarsada xaalufiyaan dhaqaale urursanaya لكن واحد سويدين له إنه ينمي حوالين بنا جبوت ومريا قيلين باكو تشبيا بورة جبوت أرجعيني باك جبوت ودكتين ما الآن حوالك كله في كنايين ما واحد تاسين توصل إلى من هندت شربع إن ما أنت لين هويستو إلى حوالين لوي مادو ما عليها هاي الشعب الهندي سومالان هل كان كبوب بلامي هاي سديغانينا خلاف دحين جوجيا حدينا بربرنا ما جري غير كلي نقول يقب قدينا وحنا ولا وضع دون سنه واحد سوعينيا ساعه 1988 كيو فرماج سوعينيا وحلين هاي dadkan waxa jaala ahayn USC ee dhibaatada ay ka keenay marka midida u dhiibteen ragii shalayto dalka ka xoreyseen ciyaalkoodii waliba ciyaalkoodii aga qoraysan waxa leenahay dawladeena iyo shacabka Soomaaliyeed waxaynu shilin haysano wayna xoog isku geena ciidamadeena dhisnaa wayna ciidamada la dhisaa hadaynu baqtiino xitaa wayna cudud samaysanaa saana mar dambe never again bay dhahaan yuhuudu inaan genocide xasuuq dambe nagu dhicin in mar dambe dhulkeena la sheegan waxa leenahay kuwa dibadda ka soo qaylinaya واتساب كذا قبيلة كجاه ليها وون فاميلي بانه ون فاميلي هي وون فاميلي زمالنا هلا تشوتشيو وعلى هاي مامك محمود سلامة انتوا يسكو كان درو ينوك اللي تجي ولا حبد أنا ندوس سوريين ويسكو كان دري تدخل قبيلة هان كوبر الحوسنة أيام وحينين أن كورر دون نين أن كود تشين دون يانو كورر دب بين قليني يعني نيمان
taariikhda Soomaalida ee tradishka reer miyiga ahayd waran lagu ogaa ma ahayn naaba haysan politicians baa laakiin khiyaamada khariif bay ku hayn laakiin dagaal ma ka leenahay dadka tolaaye leh tolaaye ku kaxaysanayaan tolaaye inaga isku tola dadka isku deegaana isku dhaqana isku taariikh ay wasdalay ayaa bal uu yeero inta dhalinaya inta ay reer Soomaaliya isku eeg waxa leenahay qolada banaadir aan ka xumay in 150 milyan ee laga qaado Muqdisho 50 milyan waxa qaata dad aan u dhalan oo madax iska dhigaya ayaa mushaar u qaata inta kale diyaarada lagu raaca meel kale cashuura ma jirto Muqdisho la cashuura ila lagu dilaa ila lagu dhoofaa ila lagu soo shaqoola lacagtiina ha bixinina nin aan wadkiisi aanu awood ku lahayn iyo magaaladiina awood ku yeelan gilgisha maxamed saad baraka gilgilateen afar inay kuriyo inay ka gilgilataa ma leh saasan leh dadkeena ha kaceen dhalinyaro kaca nacaska xuna inta lacag ay rasiyo wajsab ka soo aytamay Soomaaliya ka qabaabay iska celiya maanta waxa weeye waa maalin murugale waa maalin murugale 30 sano ka baadi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bixin arinta waan runta doonaa ka hadalno caawa insha Allah taala dadka deegaanka deganaa horaan ugu waxaan wareer garowe dad doon ma waa dul doon waanu sheegayna kuwa magaalada sanaagta baray waa dadkaasi ma dal doon oo reer dooniya waa dul doon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan yaa arintaas waxa weeye wax xilib saaray markii horeysa dadka deegaanka leh dalku dhulkooda daafaca dawladdu gacan siisa arintaas waa laga gigishaa weeye meel kasta waa naga soo galay meel kasta waa la shakhsado waxay yiraahdeen wax jira ma habaalay laakiin waa tan sheego dabar shaf la cunaa la shaf la cunaa malihin hadaan soo jeesano hadaan soo taariikhda dib u raaca wiligan guulayna gameelin dagaal laano inuu dadka ma doondoono dadka ma xumeeno quudkayna siina wiliba kii ku diliyaan waxa Suuriyana ya marka waxa leenahay Soomaaliya ha toosto dawladuna ha shaqeyso madaxweynaha uu maqan yahay xooli baa taagan wasiirkeena xoolo uu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaarado waaweyn ee la isku riday and they are not functioning ma shaqeynayaan waxa marka waa in la dadku shaqeyso wala dagaalamaya wala tartamaya waxa ka sugayay inuu farmaasho faataxeen oo akhriyo ma ku soo baxay waa dagaalamaya waa awoogii baad ka riday ninkii koraska u diray kii waxba aqoonay kii inan kufsaday kii laga sii daayo wala Mareykanka loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka mabkuu soo celinaya هذا محد قاعد عبانسا ده لا ترتم والله فعلته هذا الدولة هو لو صوت دورته ودك انستيوشن شقين يعني عبادك اسك داي على ترتم يعني السلام عليكم bixin arinta waan runta doonaa ka hadalno caawa insha Allah taala dadka deegaanka deganaa horaan ugu waxaan wareer garowe dad doon ma waa dul doon waanu sheegayna kuwa magaalada sanaagta baray waa dadkaasi ma dal doon oo reer dooniya waa dul doon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan yaa arintaas waxa weeye wax xilib saaray markii horeysa dadka deegaanka leh dalku dhulkooda daafaca dawladdu gacan siisa arintaas waa laga gigishaa weeye meel kasta waa naga soo galay meel kasta waa la shakhsado waxay yiraahdeen wax jira ma habaalay laakiin waa tan sheego dabar la cunaa la shaf la cunaa malihin hadaan soo jeesano hadaan soo taariikhda dib u raaca wiligan guulayna gameelin dagaal laano inuu dadka ma doondoono dadka ma xumeeno quudkayna siina wiliba kii ku diliyaan waxa Suuriyana ya marka waxa leenahay Soomaaliya ha toosto dawladuna ha shaqeyso madaxweynaha uu maqan yahay xooli baa taagan wasiirkeena xoolo uu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaarado waaweyn ee la isku riday and they are not functioning ma shaqeynayaan waxa marka waa in la dadku shaqeyso wala dagaalamaya wala tartamaya waxa ka sugayay inuu farmaasho faataxeen oo akhriyo ma ku soo baxay waa dagaalamaya waa awoogii baad ka riday ninkii koraska u diray kii waxba aqoonay kii inan kufsaday kii laga sii daayo wala Mareykanka loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka mabkuu soo celinaya هذا محد قاعد عبانسا ده لا ترتم
والله فعلتها هذا دولته ولا قصاد دورته ودك انستيوشن شغالين يعني عبادك اسكت داية على ترتمي يعني السلام عليكم